بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هروينيga weysiiska isu siinay ilaahay baynu mahadnaqaynaa nimcada aynu haysanay islaamnimada inuu inagu dilo inagu nooleeyo inuu ka baryeena saan horeba u qadimay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad haddaan ku celiyo aad baan idinku faraxsanay dhalinyarooy waxaan ilaahay ka baryeynaa in adduunkiinana uu hagaajiyo aakhiradiinana hagaajiyo cilmi naafica ilaahay idin siiyo camal saalixana ilaahay idin siiyo waalidkood kuwii u samafalana alla idinka dhigo dhalinyartii haddaan u duceeyey in dadka waaweyn ee culimo iyo akhyaar rag iyo haweenba isugu jiraan iyagana intaa in leeg baan ugu ducaynayaa allah waa aqbalo intaa haddii aan ka gudbo waxaynu caawa aada ugu mahadnaqaynaa sheekheena sheekh halmis sheekh yaxye sheekh ibraahim oo markii fonkortaasi soo baxday runtii markiiba inoo buuxiyey in culimo aynu leenahay waxay noo buuxin kartaa waa nimco ilaahay waa in saacad gudaheed lagu diyaariyo kulankii sheekh kale oo sheekhina ay naga aqbalo waa ilaahay mahadi qulu alxamdu lilah sheekh almis adiga ku odhan mayno muxaadarada ciwaankeeda aad gelaysaa waa taa iyo taa ku odhan mayno waayo xaaladda aad ku beegnayd baaba ahayd xaalad kooban laakiin jucbadaada iyo aqoontii kugu jirtay baan doonayaa inaad bal xogaa kaa soo qaadano adigaa noo sheegi doono waxa mawduucaad noogu tala gashay ee dhalinyartan ugu tala gashay dareenkaaga waxaad ku cabirayso annaguna aad baanu kaaga mahadnaqaynaa haddii aanu nahay mas-uuliyiintii masaajidka waxaan u kala baxayaa sheekh alims iyo mikrafoonka واي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفيف هرورتا أنا قلفت إذا ورت علوش يجسي داية يجسي داية ورت بعدين فصح ورت مدفع يتهلا يقول وريانه إبقى بكا سادي تكلي وورسرا على بشر مصطفى بدو كجليه بلاقة الله والله يعني هذا أنا ما يقولي جوجو قولي مرتيلا فردو أو شيخ يقول صرفت سامع شيخ مصطفى كاس كل واي مدبان هوستا كيرو درس يجيبوا قلي يايو أرسلك عبيو أكيد وتاي حافظ من جوجا بانكون منصور عرف كذا شيشان دقني أنا بورتك على الجحر لك كلا مركزو شيخ وسرقه عو مساج كيتك مركزو التلفون يقدر عقاري بس أقول ما حد شربانه والله مساج كيتك بيقول ما حد عايش وان بوكها بيقول وانا مذو وان جيفا بيقولي وكيع كريو markaa wuxuu igu daray wuxuu yiri war kaco ifuro buu yiri kaco ifuro markaasaan khamiis yar oo cad oo doontay bal inuu ka wado isna mid baan dirqi ku helayo horta soo orday horta imid intaan soo socday iska okay bay ahayd markaan arkay baan sii naxay hadan mar labaad iyo xumad yaadana igu sii kacday markaa waxbaan sheegayay ee waxaan idinka dalbanayaa qalbiga idiga sii daysaan okay soo manihin waaya وسير بوهبوهين يا مرك أيرو بوهبوهين أيا سي أورندونا هدي لهيدنا شيخ إلهي سبحانه وتعالى وادخل من تام أنت كذب جزاكم الله خيرا وحال الشيخ علماء المسلمين تو لبدي بقول سنة ودن بيجي مركي حالة دي مسلمين تأي دراسيين أيا وحال الشيخ صدق قضبه وويني إن يتهي مشكلة المسلمين تهيستها oo laf dhabar ah ma saddexdaa un baa haystamay mashaakil badan oo kale ayaa jira laakiin saddex laf dhabar ah inay jirtaa lagu celceliyaa alfaqr saboolnimo mudqica takhallufka markaa intaasoo mixwar hoos dhig takhalluf caqadiya takhalluf cibaadiya takhalluf akhlaaqiya takhalluf xadaariya takhalluf tiri isagana إذا وحنا الفقر التخلف
صدح waxay ku saddexeeyeen الفرقة ninkii dhadhamiyay baa garanaya markaa furqa الفقر waa saboolnimo takhallufna waa dib u dhac الفرقنا waxa weeyaan waa kala tag ummad jirkeedu wada joogo laakiin qalbigoodu kala maqan yahay saddexda arrimood baa aad 200 sano ugu dambeeyay la yiraahdo muslimiinta way la hadhay marka saddexda cidii isku dayda wax kamida inay xal ka keentana waxay ka shaqaysaa daweynta cudurrada waaweyn ee muslimiinta cidii saboolnimada ummadda in laga saaro shacabka laga saaro dadka laga saaro dhalinyarada laga saaro ka shaqaysaa waxay ka shaqaysaa mashaakiladii waaweynaa ummadda nabi maxamed haystay mushkilad kamid ah cidii dib u dhaca takhallufka diineed iyo takhallufka cilmiyeed iyo ka xadaariga ah ilbaxnimo cidii ka shaqaysaa iyadna inay ummaddaasi ummad takhallufka ka baxday oo ummad mutaqaddima ay noqoto isna wuxuu ka shaqaynayaa waxtarka ummaddan uu ka shaqaynayaa isku haynta ummadda la isku hayo allaala intii meel wada joogtaba intii la isku hayn karaya in la isku hayaa cidii ka shaqaysaa iyadna waxay ka shaqaynaysaa ummaddan horumarkeeda marka maanta hal qodob ayaan wax kelmad ka oran warqadda yar baan guriga ka soo helay oo la soo cararay markii ay hawshu timid khudbad jimco bir hore galay bay ahayd oo tibar idinku celin علي هذا لا إله إلا الله محمد رسول الله قودا شقدا لأن يروا إن شقيسوتي وحصو صار لهاتو أنا فديت نقول لديدو ها بإسلامكم هو كيري ما وحكشيء هدي لهيد الفقر صبول نمضو علماء waxay ku qeexeen waxay yiraahdeen waa an-naqs fi al-haajiyat al-asaasiyya baahihi asaasiga aha qofku hadii aanu haysanin cunitaan cabitaan iyo hooyigi saddexdaas ah asaasiyaadka bini'aadamku u baahan yahay luqmatu aysh iyo wuxuu ku asturo jirkiisa cadceedna kaga magan galo dhaxanna kaga magan galo iyo meel u dago waa asaasiyaad baa la yiraahdaa inta qofka aan haysanin waxa lagu tiriyaa inuu faqr inuu maxaytol inuu yahay isaga iyo caruurtiisa iyo inta uu mas'uulka u ka yahay wax ku filan hadii aanu haysanin waa faqr waxa yiraahdaan qolooyinkan yiri aqoontaas dhaqaalahaanu ku tagnay waxa yiraahdaan goorma qof la yiraahdaa waa sabool ama reer la yiraahdaa waa sabool income ka soo gala ama dakhliga soo gala haday maalintii $2 ka yar tahay baa la yiri waa sabool $2 income kiisu haduu maalintii ka yar yahay waxa lagu tiriyaa inuu yahay faqr wadankaynu joogno markii la isku wada daray 10 kan ina shirkadaha la kama hadlayo waaweyn kama hadlayo may shacbi weynahan ka hadlaya miyiga dadka daadsan markii la isku daray waxa la soo saaray wadankan aynu joogno income-ka qofku inuu $1 yahay iyo qoyskuba $1 iyo wax ka yar marka laynkii saboolnimada adduunka la taabtay waaynu ka hooseynaa hadduu faafo faqrigu iyo saboolnimadu hadday faafto diinna ay yaraato waxa uu keenaa diinta khatar buu ku yahay faqrigu akhlaaqdana khatar buu ku yahay tasakhud wax la yiraahdo keena qofku inuu yiraahdo ilaahow maxadaani saa igu gashay qadarka ilaahay inuu qaadan waayo raalinimadii buu waayaa warwarka badiya bata dil boob dhac laaluush xumaha oo faafa akhlaaq xumo waxaa soo idil waxa wata والفقر انت صوت بوكينا واتي اللي يري لو كان الفقر رجلا لقتلته هدونية هي سبول نمض وبدلي لها
qaarna waxay yiraahdeen إذا ذهب الكفر إلى قرية إذا ذهب الفقر إلى قرية قال الكفر خذني معك هذو صبول يفقر تولو حقيدو دقاقو قال لماذا نوحي ترادا هنكو سي راعو أخلاق حمدي مكا قال لماذا هنكو سي راعو أي محي ترادا سيدا أوقيت دعوين كي النبي وحا كمدها صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر صدق حاسو النبي اسكو صلى الله عليه وسلم اللهم إله يو إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر إله وحان كان مغان قالي قال نمو إلهي بو كان مغان قالي النبي صلى الله عليه وسلم والفقر صبول نمنا إلهو أذان كان مغان قالي صبول نمو حانو جيدنا مكا وحان نري قفكو حاجيات كيسي أساسي هاينو وايو تسول كاد بران شحاتك واد هبران وجيغاغا عدكو أولي مايو كعنت هذا حد يجير هوسين waxaad jeceshahay sheegi kari maysid waxaad doonaysa ku dhici kari maysid illa waxa tahay inta wad habranaysaa waxba doonaysaa ileene noloshaadii iyo ubadkaagii iyo reerkaagii wax ku filan markaanad haynin wax allaala waxaad oran kartaa haba yaraatay ma jirto waxaas leedahay intii yareed baa laga xiri gaha ku dhaafto midka qof kala oran doona ayay noqon اللهم إلهي إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر أي إلهي نبي محمد إلهي كهوز قال صلى الله عليه وسلم عكس هذا قف إلهي كحكومي صبول نمو وأخلاق دينا كحمان دينتينا أتوصن تحي قدر كي إلهينا آمين سن شقي سنة ينا انت كفلنا قناعك قبه انت هايستنا أن حاسدين intii sana ku faraxsan rabbina gacanta hoos dhigto rabbow ii siyaadi leh fadhiidna ahayna shaqaysanayo oo daalaya nabi maxamed muxuu ka yiri sallallahu alayhi wasallam ahlul jannati thalathatun janno waxa u saaxiib saddex ayaa janno u saaxiib abu nabi sallallahu alayhi wasallam ذو سلطان متصدق موفق ذو سلطان مدحوي مقسط عدالة فرع متصدق صدق الله بحق موفق حق إلهي الله خيرك وافجيه وأهل جنب النبي نكاس صلى الله عليه وسلم لبا ورجل من مقفده على الغالب قف رحيم القلب قلب دبعسن قلبيسو دبعسن يحي أيو دبعسن يحي لكل ذي قربى قف كستو قرابة أو باهن أطرع أبقى وركوذ أبدكوذ للصعدة وحي لوس هو الشيء قدام قضاه هذا أنو يسوي حبا أهينين مقالة أقاله ورجل رحيم القلب أن قاسي القلب أهين أيو يهي لكن لكل ذي قربى ما انت أكلية مي لكل ذي قربى ومسلم أي لكل مسلم مسلم كستنا وأطرى يا يو أبقى يا يو ونحياه كي نوصع النواكن محل شاهد وعفيف متعفف ذو عيال أصبول وحما هايستو ودورية هذانا أبدنا واليه أبد ubadkiina way sugayaan wax uma hayo wax ku filan uma hayo wax isaga ku filan ma hayo miyuu xadaya may ma boobaya may ma dhacaya may ma laaluush taqaanaya may akhlaaqdiisa iyo diintiisa ma iibinaya iyo dhulkiisa iyo dadkiisa may mutacaffif wa gacantiisa iyo boggiisuba waa dhowrayihiin taxanuunka badan waa maxay duu ciyaalin hadduu keligii yahay qof buu gacanta sixniga la gelin lahaaye waa la sugayaa waliba inaga waa taqaanaan halkan caruurta soo taqaanaan
iskuuladii malcaamadihii wixii la cunayay hawsha waa badanta intii oo dhan baa waxna uma hayo waa ahlu janna buu ninkaasi nabigu sallallahu alayhi wasallam afiif mutacaffif duuciyaal ah waa ahlu janna ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam sida quraanka waxa ku soo arooray in dadka jilicsan ee waxaysan ee masaakiinta ah la ogaado laga warhayo afhayeen loo noqdo qareen loo noqdo loo ergeeyo agtooda la joogo baahiyahooda war laga hayo ayaa asal ah oo ilaahay markuu leeyahay للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا أي إلحاحا لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم إلهي وحوله سبحانه وتعالى فقراء سبولك هيد در إلهي لو منعي لو حسبي aan karaynin dhulka inay lugeeyaan oo wax doonaan oo ganacsi tagaan oo shaqaystaan aan karaynin qofka aan xaalkooda ogeydi wuxuu u haystaa inay maal qabeen yihiin maxaa ku kalifay min at-ta'affufi ma baryootama shaarkiisu waa u nadiif yahay shaar cusub maaha shaarkiisu waa u kaawadaysan yahay la yasaluuna an-naasa ilhaafa dadkana hadalka kuma celceliyaan ilhaafan ay ilhaahan noo dhiib ma jirto iska aamusan qofka aan xaalkiisa ogeyna wuxuu u haystaa maxay inuu dhaqan yahay ayuu maxay tolay u haystaa warba duulka warkooda hayabu ilaahay aayadu si dadban inoo leedahay dad badan oo idinku dhex jira oo u haysataan inay dhaqan yihiin laakiin xaaladooda hoose ay tacbaan tahay la socda daylkii aayada ilaahay wuxuu ku daylay uu ku soo oorayay wama tunfiqu min khayr wixii aad khayrka wax kala baxdaana fa inna allaha bihi aliim ilaahayna waa kii sheegay 8 nooc oo zakadu ku baxdo ummadda nabi maxamedna kamid ah in hoos loo eegana ay waajib inagu tahay inma sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi ar-riqabi والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم انت اصلا مجتمعين كمتها وانا انت الزكاة صدقات كلية معها زكاة واجب كهيد انت اهيدين يكب بحضه اي الله سبحانه وتعالى وينوشيك وحاو اسلامكم بلوغيسي هرمركم بلا ما الا ما انت منهج وحو كدغتي فقرية إن لا دغالمو أو لا إسكا عابيو أو دادك لا أبابلو أو أمد النبي محمد لقد دادعيو إناني نقون أمد هوسيسا قعنتيذو سو حديث كي ما حفظ سندين قعنت بريو تميسا إيه هوسيسا وحا كفضل بدن قعنت سو حديث كا ما هيسان حديث كا رج أو وحا ترى هذا قفكي هدي اللي يري كوحبحنا يا كخير بدن كقادنا يا haddaynu si wadar haddaynu qaadanno ka war ummadda wax bixisa iyo ummadda shaxaatanta ee tasawulka ku jirta teebaa khayr badan ummadda markaa mundu bilowgii horeba islaamku wuxuu ummadda u dhaqaajiyey oo uu yidhi waar saboolnimadu dhibtaasay leedahaye hal laga baxo muxuu yidhi markaas fard muxuu asal uga dhigay intaasoo dawo ayaa jirtay maanta hal dawo kaliya ka qaadanaya al-amal in la shaqo tago in la shaqaysto oo la dhidido ayuu islaamku asal maxay uga dhigay hoosta waxaad ka wada leedihiin dhalinyaroy hoos u sheekaysanaaye maxaa laga shaqaysanaya soo hoos mid ku soo dhacday حلقة شقيسة وده كبشقة تعالى ها ويدقوا سود دقيسة حلقة شقيسة يا حمي يا لامبي العمل
waxaad hareeraha ku aragtaan Hargeysa waxaad ku aragtaan Hindi Pakistani Bengali Suuriyan Masaari Kenyaati Ethiopian cid baan iloobi ya Yaman haye intaaba ma aragtaan wadankiina ma idinla joogaan wadada ma ku aragtaan ma dalxiis bay idinku yimaadeen mise idin daadaawanayaan wax la daadaawada dhulka idinku yaala buurada daadaawada maad leedihiin maxay soo dooneen intaas maxay u yimaadeen bil walba dhamaadkeeda dollar ma diraan mise ma diraan hatta qolooyinkan Itoobiya inala jooga ee dhulka xaadha ee inagu ka faano markay dhulka xaadhayaan aroortii Hargeysa nadiifinayaan ee shilmaadkooda intay qaataan isku dardarsadaan ay dirayaan intaasi maxay u yimaadeen dhulkiina maxay u joogaan soo maaha haddii dhulkan aanu dollarka haddaanu oolin miyay sii fadhiyi lahaayeen haddaanay waddankan aanay hanti wax ku ogeyn iyo wax soo saar haddaanay ku ogeyn miyay fadhiyi lahaayeen mise meelo kale raadsan lahaayeen marka intaaba eegta oo dhug u lahaada dhalinyaro shaqooyin fara badan baa saaxadda ka baxay oo ajnabi la wareegay Allah la cid isweydiinaysa haba yaraateena aana jirin adiguna waxaad doonaysaa maxay xafiis secretariat mobile phone line phone land cruiser cimaarad dheer ood kortid ayaad doonaysaa gelinka dambana aad macmuus soo xidhatid ood maqaaxiyahan $2 shaah ku cabtid $1 aad keeg yar ku cuntid deedna aad tiraahid gorgor qurux badana هذا هو style of life saasaynu doonaynaa inaynu maxay wada shaqaysano laakiin in la yiraahdo waa la gaari taase waa la gaariye horta han ka bilaabo maanta halka ay hoos taalo diyaar uma nihin sabab marka saboolnimo iyo faqr uga baxayna marka kitaab baan ka akhriyi jiray masaajid sahih al-bukhari mukhtasarkiisaan ka akhriyi jiray maalmo markaas baan arbaca oo kitaabkii dhigay ayaan habeenkii markaan dhameeyo kitaabkan tukaan weyn oo laga iibsado cuntada meeyri jiray habeenkii Yurub kitaabkii markaan dhameeyo tukiye maqribkii cishii baan baxay gaariga baan qaato qorqortaayo bahalkii lagu meeray baan koray gabdho dhageysanayay kitaabka sahih al-bukhari mukhtasarkiisa ayaa meesha wax ka iibsanayay malaha anoo gaarigii saaran bay soo agmareen markaasina Allah waa sheekhiina qasaaku sheekhu shaqaysanayaan masruuf ma siisaane sigaadka sheekhu baan uu shaqaysanayaaye oo masruuf ma haysaanay la kitaabaan soo dhigay kitaabkan adduunka kaga ma qaatay kitaabku waa lilaahi taasoo waxii aakhirada account-kii aqraan dhiganayay laakiin waa shaqaysanayaaye هذا يا رالي هذا ما كون هبليت نقابك حجابك isku qaaday fadhaka iga carareen wax ka shaqaystay markaad eegtaan kutubta markaad eegtaan culamadii muslimiintu way shaqaysan jireen waxa laga sheekeeyaa Ahmed ibn Hanbal ba mise Imam Shafi'i labadaba waa laga hayaa isagoo habeenkii soo jeedo masaa'il fara badan kala dhigdhigay oo sii baxaya أي إسلامتيسي لبدي شيخ مت كمذا كتير حاج عرورته وعن ما أنت أكريه ما هي بكتير برجي دقيق ذي ما هي بتر لما تقولات كعمامة يرتو سيستبيو دم بيا قال الله هداف دم بيا قال الله هداف تضبط المسألة هذا حاليا سكوت تو استبدي لو سيسيبيو واشق يسنجر أبو حنيفة النعمان شقالوها بزاز بوها بزاز وحيبين جري dharka aan la tolin waaraadka ayuu iibin jiray aroortii intuu soo fadhiyo soo tukiyo masaajidka uu ka yimaado bakhaarkiisa fursan jiro markaas uu dharka iibin jiray wuxuu oran jiray luqmatul ayshka maalinta markuu helo ee uu qof kale u soo galo doono inuu ka iibsado oran jiray anigu maanta kifaayadeedii waan helay kan baan laga iibsanay kan ka iibso anu aan helay maanta intii reerka u geyn lahaay balorta tuka kana la gelinay kan galbu oran jiray ka shaqo إمام مالك ابن أنس
taajir reer maka abuha waliba ardayda wax siin jiray isagu ardaydu quudin jiray waliba ma aha kaliya isaga ardaygiisa maxamed ibn idriis shaafici bakhaar buu ku lahaa qaahira tukaan saddex jeer buu kacay baa ثلاث مرات aflas ayuu kacay imaam maalik baa u soo buuxin jiray mar walba markaas imaam maalik la hadlayay waa maxay waa bakhaarka soo kacaya waa ku sidee markaas uu yiri arday baahan wax u dhigi kari maayo buu yiri arday baahan oo hor fadhiya oo bogga iyo bac isku haya waxba u dhigi kari maayo buu imaam shaafici waa horta masqabada haysa iyo xanuunka horta waan ka biyaa buu yiri horta asaga qaaday markaas wuxuu dhigi karaa buu yiri markaas isna dhageysan karaa waa shaqaysan jiray waxyaabaha cajiibka culimada waxaad maqlaysaan qaar in la oran jiray hebel القدوري قدر وحويان ودستي ذا أي دمر كعنتدا ينو كريا سمعها محو قبل جري قدوري دسودة ديس بتو توسين جري قدوري باللو بحي تجدون فلان الفلان ها الخصاف كان يخسف النعل كبطلبوها كبطلة كبو مركا يقوان بهوستا كقل جري ها تجدون الماوردي سو أحكام السلطانية ما هيسان الإمام الماوردي معوها بيولي أيو دبرك كو قادي جري ماء الورد انتو كدارو ورد قال كاسو كيمي أيو بيا يرو سوا عرفيو ماء الورد له أيو شارع على مجري السقا أيو أورنجري بقاسو بيا شو بيجري حغيرنا وقادي جري سبحان ربك ما وضع ده مسوا كهرا انت هم بين هبط ترين بده هبط ترين القفال فقيه القفال قفلة جماعة توسجري كان يصلح الأقفال أقفاشة أيو محتول أيو كشقيسين جري وما تبغى شقيسان سو ودا دلال سو جهدي محتول وجود جرتا أي محتول أي ومدو أي وضع هيد هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا مركو إلهي نوم من الشيء يمحون يجري إلهي رلكي وحو إذن كدجاي فراش ذليل بو إذن كدجاي ما حقبته فامشوا في مناكبها وما حد دونا وكلوا من رزقه هو كان إلهي واسع إذن برا بحرا انتم waxay idin tahay mutawafire ilaahay wuxuu leeyahay idin duleeyay dhulki adaan ku sahlay ayuha al-insanu dhulkaadu ku sahlan yahay wax soo saar shaqatak wax qabso ilaahay ku leeyahay subhanahu wa ta'ala ya qawm ibudullaha tolkayow ya dadkaygiyow horta ilaahay caabuda ma lakum min ilaahin ghayru ilaahay xaq lagu caabudo rahmaan ma hay rahmaan kale ma jiro he هو أنشأكم من الأرض إلهي قلبوا إذي كأبوري وتراب كده محيي مكا واستعمركم فيها وطلب منكم أن تعمروا الأرض إلهي وحو إذن أمري مركا العابدان كليجي إلهي الشريك يالين وحلباذا إن الأمر وحوي واستعمركم فيها لك عمر الديس iyo wuxuu ku horumari lahaa iyo wixii wax soo saarkiisa lagu soo saari lahaa hantida ummadda wixii wax loogu qaadi lahaa qayrkood inay qarafaystaan wixii looga ilaalin lahaa awaamir aan u qalan oo diintooda dhaawacaysa si aan loo amrin inuu yiraahdo war waan isku filanahay waxba uma baahniyay daaya qof isku filan qoys isku filan qaran isku filan qowmiyad isku filan iyo ummad isku filan oo waliba iyadu bixinaysa wax iyadu wax bixinaysa marka laaka abaarba dhacday balaaya dhacday ummadda nabi maxamed ay tiraahdo aniga diyaar ah in allaala inta bogo dhulka ku haysa waxay adiga ku saaray laakiin adiga lagu soo qarafay aroor walba oo maalin walba la yiraahdo waxay u dhimanayaan gaajo iyo aboor iyo waxba u dhimanayaan boqolkiiba 5 hooyooyinka ubadkooda ku dhala wadankeena boqolkiiba 5 ayaa ubadkooda iyagu israacaan number 1 baynu nahay adduunka inta ugu badan ee ku dhimata xaaladda umush iyadii israacaan number 1 baynu adduunka ka nahay 5 wax yarba يعني 10 qof ee ku dhashaba 3 ilmo ayaa ka ku dhintay daninkii qofkii sida yaree sahalka u fikiray muxuu oran qadarkii ilaahay maxaynu yeelnaade soo saama ilaahay baa qadaray way dhimanayaan dadka wada dhintaan
qof saf ما شاء الله مهدورات ما دقيسني شيخ درو قدر كشرحية أدبر وقص لقاري قالوا صار أدبر وقص ما لا الدوري بتعرف شيخ قدر كاسف كالله برجاسة والعيون أنت الباب والبس كسر حدور مال والبكر عام بكرون يا قدر كبير أدبر والقدر كلا هي ولا الرومينية رضي الله ولا الرومينية محل لكن ده أسباب تلاهي لك عليه أسباب أجرتي له سمها أسباب لك عليه أسباب لك عليه لما وذات با اسمع سلامين يجي نبى نوفو حيورا شقتك جاية يسود دعي شقيقا البلخي أيا لو نجي شقيق البلخي ننك أوسي مع سلامين أنا وإبراهيم ابن أدهم وأن شقتك إن بضم مقنانا يا أبوي سايقول وأي هيبيلوا أسكت دعي رابح شقيق البلخي وادوفي dhexda isagoo maraya ayaa wuxuu arkay shimbir buul ku jirta oo baalalku ka jabeen oo lugala oo buulkeedii hoos jeefta in yar kadibna wuxuu arkay shimbir kale oo caafimaad qabto u timid shimbirtiyo afka luqmadii ugu guraysa shaqiiq albulakhi wuxuu yiri عشان برتب بوات وحيد أفكار لو قرية محا شقية كدالي بس كسر نقضي صاحب كي بو يمد إبراهيم ابن أدهم بو يمد إبراهيم بين رصاد يلا هوان صوح وكسنة يحرقا من مغنانا هي محا كسوع عليي مركز سوير وحنا رك إبراهيم ابن أدهم شمبر بالالكو كجبل أو لغلا أو كسيحة أو بول كي كجرته شمبر كلو عافمات قبطة أفكار وحوقو قريصه markaasaan isiribu yiri war ilaahay tala saaro sida shimbirtaaba loo quudiyay ayaa lagu quudin adiga maxaa ku dhibay saaxiibkii baa ku yiri Ibraahim ibn Adham baa ku yiri rahimaka Allah ya shaqiiq Allah ku naxariisto oo maxaad u ogolaatay inaad noqotid shimbirta baalalku ka jabay ee luguhu ka jabay ee fadhiidka ah ee buulka hoos fadhida maxaa taa u qaadatay eedu qaadan weyday shimbirta caafimaadka qabta ee duulaysa ee shaqo tagtay ee kan quudinaysa شوف الفهم ها حاد كانوا قادم ويدي حل يدا كمدا ayaa waxay nagu faafay fikrigaas ay nagu faafay adduuna dunku waa shaqo gaalo xabay nagama gelin tazahud zuhd baan ابن تيمية تي ورنجري الورع البارد بورنجري ورع بارد انت اجروه تجارته واوين الكويت ayaa habla uu dhalay ayaa laba la soo doonay midna inantii wadaad baa dooray midna ma sha Allah mid waxa haysta dooray kii wadaadka inantii wuxuu ku yiri heblaayo anigu buu yiri sidii Abu Dharr baan doonaa u noolaado sidii Abu Hurayra ayaan u noolaanayaa buu yiri meelo ogolaan sabakaas intii ha meel yaro waxay gelis fooq buu geliyo Abu Hurayra waa la sheegaa guriga ciriiri ku ahayo markuu isagu tukanayo way isqaybin jireen habeenkii mar isaga mar xaaska mar gabadha u shaqeysa guriga deeqayna hataa sidii ugu waday guri taajirna way ka soo baxday inta markay walaasheed u tagtana waxay tagtaa qasri iyo guriga waaweyn bay tagtaa afti ilaahay bay tiiras ku tigantay kaasi uu waxay tiri Abu Hurayra waa iska orayle waa sidee adeero sheekh bay u tageen marka inantii baa sheekh u tagtay sheekh ay u tagtay sheegay markaani anu yeero xukuumkaas iga soo gaarbay ku jira kaas way qabtay كوير هرمحات مركز إن دلنيار يا شيخ جزاك الله خير الدنيا كذا ملعون ما فيها أحبا دوني ما أنا سيدي أبو هريرة أي أنا نتاكل دقيا شيخ أنت وقصلي بيوري أبو هريرة ما قرابة هيدين بوكيوري أو ده مسك قارض الحرير نسابو يوري مركز ماي أبى دوسي يمني بو عامه هنو رير بري عليز برواك أنا يبي نجدي وأنا إسنوا ما في نسب أبو هريرة ها خير لك وما حكودي ذي بيقول سيدي عثمان بن عفان ونولاتت عثمان بس صحابي بو هاي يا عبد الرحمن بن عوف صحابي ويا هايين مسكين تير محا أبو هريرة ده بدي جيبه
عثمان يا عبد الرحمن سيدي دي ما دون ولا سيدي أنت مركز أرضية دي بنت مستقبل شيخ محاتري تلا بضرب صحابي بقى هاينه باب كانوا هك آخرينه باب كلا إسنجروا أول رايد ويقولوا مبشرين بالجنة وش ما هي يقولوا مبشرين بالجنة يا هاينه حق عبد الرحمن بن عوف وقعاب بيقولوا أنت يركي رايو صاحي كأنه بيقول إما كأنه يقول عصب كريسان النايو كسر هذا أركي محانو قصعدا محانو قصعدا فلسفة دا قشي فلسفة تصوف كأنه يبوها تصوف قلدان وقلع سمي وقير كأنه نجر ريبي وعذو إنه هوس فلسنا وقلاري مرحلة معينة من الجلكاسي دبوا حربنا مركا إنه محيطولي إنه كسفونه وإن أمض وحقب سنة أو شقي سنة أو وحصو صار له إن أن محيطون نقولنا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات إلهي وإن بركي سبحانه وتعالى إلهي بين بركي وإن كرامي إن آذنوا بر يا بحر بإلهي باكو حنباري رزق باو دونسا بر رزق باو دونسا بحر رزق باو دونسا وذلك فضل من الله تبارك وتعالى إلهي نطلب محيطولي صارنا سا طيبات كنا إلهي بين السيئة سبحانه وتعالى أحاديث النبي باب كاكا هاد ليس لا عد ولا حساب صد حديث بانكو ختم الدونا لا بحلي أنا أقول صحوة إسلام كي براروجي إسلام كي أنكو أبابي تضباطنات كي سديتنات كي لبن مدرسة دود بيو فكر إسلامي جيه وتقال كل جري لبن مدرسة دود ومركا أدونك كتلين يي أيه صحوة إسلام كي براروجي تضباطن كي سديتا كي سنة يقدم بيه لبن مدرسة دود بيليت كو هايت مدرسة دي شيوعي هايت hanti wadaaga ahayd ee tiri qofku wax ma lahaan karo wax walba dawladda leh wax walba waa lagu leeyahay hatta xaas ma lihid waa all right isna aska furay maba mid qofka haysa jiri afish ashiyuuciya basaasa wax la kala leeyahay ma jirin saxwada islaamki ka aad bay dagaal ugu qaad kitab la qoro muhaadarooyin duruuso afkii uu soo dhaafay markii dambe gacan baa laga hadlay gacan baa la iskugu tagay Afghanistan wixii ka dhacay baad ogeydeen 79kii cidda taariikhda dhab ka sheegtaana waxay tiraahdaa dawladda weyn anaxda waxa ka jabiyay saxwada islaamiga isku tagtay oo maxay la dagaalamasay fikriga shiyuuciga la dagaalamasay xagga kale madrasa kala jirtay oo saxwada islaamiyana dagaal fikriya kula jirtay ومدرسة رأس مالية هانتي قوسط كها إن ير إني هانتي ده لهاته الدونك أنت كلا أي أنت الضوء النقطة بنجية ده واوين إنشورنس كشركة ده واوين إنشورنس كأه تلكومينيكيشن كشركة ده واوين كوربوريشن ده واوين الدونك إني بقول كيف اللبا الدونك إني قعنت كويسه 98% أي أنت شغالة النقطة مدرسة دانا إسلامكو هي مدرسة الصحوة الإسلامية دقال دير أي نكل جرتي إسلامكو مركا وحو لها لبدا دحل لو نقضو لبدا دحل لو نقضو الصحوة الإسلامية هاد يجير نبرك وحي ساري جرتي أو يقعن صار لله هيد الفقراء والمساكين وماسك صبولك ينتا وحده هيسن أي قرين يا أفهيين وهيد marka haday madrasadii jabtay madrasadii kale wali way taagan tahay xoogna way leedahay marka in la sameeyo islamic capitalism islam hanti goosad oo loo fatwoodo oo loo daliileeyo oo hanti goosadkii cimaamada loo xiro tasbaxina loo dhiibo marka halkii in yaro liberalism ay haysan lahayd hantida inay in yaro islaamismi ay haystaan waa shay lid islaamka ku al-islam kaana waa ka yimid shiyuuciga ka hanti goosadka isagana waa ka yimid dhax ayuu rabaa al-fuqaraa wal-masaakiin ummadda in la tawciyeeyo oo ummaddu ay shaqo tagto oo ka soo baxdo xilkii maxay toolay saarnaa at-taajiru
الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء تاجر إسلام كلتكم لما تقال النبي قال يري صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح الله في عنا حول حلال أو قف قب قعنتي كجرا وأفكا أنت هذا كلا قادم فهمه واحد دور سده مركب شديد لا هاوش أنا بينه كنيسة بالله يبسنا يجربك شربان كجرنا نبان الله فردية تجارة المسلمين تاع وكسر قيب قال الشركة مركاسا سي wax loogu sheegaa la leeyahay ninka markaasa la yiri shirku ina la fadhiyay haynu ka sheekeyno baahida masaajid laanta ina haysata iyo intii baa la akhriyay isna hoostaas uu dhaga yareegaya sida gorgor waasuu noo eegaya markaasa dibba hadlaya aftahana wuxuu yiri laba shaaric halkan laba wado hadaynu ka talawno kaniisada weyn ee halka ku taala iib way kacday kaniisadu way kacariya kaniisad baa kacday marka waa la iibsanayaa انتو بدع تاغي سرو تاغي بيور المثال سينيا كلمه كلمه اورن كم عرفت وين بدنيده وارو نحنو waxaanu si wada sheegtaan mise iyar baad u sheegtaa markaas aanu niri milyan euro 1 milyan iyo bar dollar meelaha kaasoo halkan gacanta gelay check yar watay soo saaray buu saxiixay magacii masaajidka ku qoray markaas uu sanadka dooma kan idin imaado kaniisadaas oo masaajidada aan imaado ku tukanay ni'mal maalu salih ha fi yadi rajul as-salih markay laba arimoodi dhalinyaro iyo culamo laba arimoodi ummadda ay iskugu beegmaani way horumartaa laba arimood ummadda ay u kala bayraana way dhutidaa ku celiya aadi dhageyst laba arimoodi haday ummadi laba arimood iskugu beegmaan laba arimoodi dhan u wada dhan u dhaqaaqaan dhaqsay u kacdo ummadaas labadaas haday iskugu beegmi waayaana iska xaabata waa maxay الفكر والمال أما وحات هذا العلماء والتجار علماء دي دين تهيسي iyo maal qabeenkii haday isku manhaj noqdaan oo isku wadan noqdaan oo isku hammi noqdaan kana fikirkii aqoontii keeno kana xoolihii ay ku dhaqaaqi lahayd uu keeno maxaad filaysaa way u yimaadeen ya rasuul allah aan ku raacno sallallahu rasuul allah aan ku raacno laakiin waxaanu korno ma haysano fardo ma haysano oo wax ma oo hub ma haysano markaasuu yiri waxaan idinku qaadaana ma hayo oo nin walba isaga intiisa yar soo qaadan jiray way jeesteen iyaga oo ilini ka daayso maxay la ooyayaan inaanay wax dar ilaahay ula baxaan aanay haysanin Uthman ibn Affan ba soo dhaadhacay masaakiintuna halkan ku ooyay war maxaa idin helay nabiga dagaal u baxsan inaanu raacnaanu doonayna waxaanu korno waxaanu ku dagaalanno sahay ma haysano markaasuu yiri gabigiinaba ana qaba wixeedaba gabigiinaba hubka fardaha waxaad koraysaan oo dhan nabi maxamed baa loo sheegay sallallahu alayhi wasallam intuu Uthman saaw eegay yiri allahumma ilaahu Uthman raali baan ka ahay adigu horta raali ka noqo ma darra Uthman ma faala ba'da dhalik hadda inta waxa doonto Uthman oo samee maanta jaawasta alqantara Abu Bakr Siddiq intaasoo jeer buu kacay uu kacay brok soo ma tiraada intaasoo jeer buu Abu Bakr kacay hiil uu nabiga u hiilinaysa uu dhiibay waxa maanta loo baahan yaa maanta la xoreynaya waxa doonaysa labadaas markay isu ka istaagaan taajir han leh oo fikradii ku jirto wax doonaya inuu fuliyo adduunkan oo xoolahan aanu aruurinayne xoolaha wax ku qabsanaya iyo caalim soo jeeda oo aragti leh oo hor dhigay taajirkii hadii inta la isla helo labadaas markay ku kala leexdaanna ya aad ku xiiqdid inaad tiraahid caamad yar kale fur waxa lagu falayaa caamadu magaalada masaajidka caamada bay halka aad kun jeer ka fikirtid ma u tagtaa mise uma tagtid
لو حقيقة سادات تكتب بشيرين ها صاصوك الأصل التاجر الصدوق الأمين يا الله صح حشرنا يا مع النبيين والصديقين والشهداء قفك وحي الحديثكي وحما بيرتد جيد ما قطمي ست بير أما جيد قطمي كدبنا حولا اسكا دايا بني آدمي شمبري جيد كاد قطمي سي أما آد بيرتي كما عنو أما بني آدم كما قوتو أما حولا ما داقو إلا لغو قرو صدقة إنتاي صدقة إنتاي لغو أصلا نبي محمد محيري صلى الله عليه وسلم نبي إلهي صدر مجرو إلا أو أري راعي يمكن أن أذكر شقاء أريبان هيا مية ما شقاء يسنى هيدين بل يوري يا أدياري إنو أري راعو قعنت يتاقع ما شاء الله شقاء الديار إنها مركا أحسن الله إليكم حبيبك وحي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد رعى الغنم مجرى النبي إلا وأنا الراعي مركز الصحابة ذي هذين حتى أنت يا رسول الله ترحي الشوذين وهذا هو بعد ما راعي ذي هذين مركز يقول ها ما الراعي كلمة مورا محيوري وحان الراعي بيوري أهل مكة إسلام تيار يقف كي راي حين يرى أريها يستقبل النبي يكون رجلين وأن كحين جري بيوري قبل كمر كدومان سوء علن جري بيوري ما حيسين جري بيوري قراريطة شان قيبودو لو قيبيه درهم wax yar ba isku ka dardari jireen buu intaas ku shaqaysan jiray buu Maxamed sallallahu alayhi wasallam min baa nabigi salaamay maalin dhalinyaro sallallahu alayhi wasallam markaas uu nabigu ka yaabay gacan aad u shaqaysanay tahay ya hal tawaftid u shaqaysaa intuu gacanta u taabtay nabigu Allah waa gacan ilaahay nabi Maxamed ba jecel yahay buu sallallahu alayhi wasallam هذه يد يحبها الله ورسوله جعلها waan kaga baxayaa mushkiladda ina haysataa waxa weey shaqo weyn wada doonanaa in wax la qabsadana waynu doonanaa qofkuna jeebkiisu inuu yar qoyo waynu doonanaa laakiin dhalinyaro maxaynu doonanaa wixii maxaynu ku rabnaa easy hoppa inuu ku doonanaa inaynu shilin ku darno halkan maalin waxaan idinka sheekeynayay maalintii Uthman ibn Affan radiyallahu anhu sheekadiisa aan waday halkan waxaan idinka sheekeeyay عثمان بن عفان سيدو لعقته كسمي مركا محاضرة أصلا